in kulan la qabto gudoomiyaha baarlamaanka iyo dhammaan xildhibaanada kulankan ayaa la sheegay in uu ku saabsan yahay xaaladda guud ee dalka iyo doorashooyinka qaranka haddaba waxaa qadka magaalada muqdisho si toos ugu jira dr xasan sheekh imaam oo ah bare jaamacadeed culunta siyaasadana sidoo kale ka faallooda dr imaam soo dhawow waad la socotaa shirkii wuu soo dhammaaday wax natiijana kama aysan soo bixin marka maxaa meeshaas ka dhalan kara بسم الله الرحمن الرحيم مركور وحن سلام يا دمان داودياش نقد داوانا يا ورباهية تيف بي بي سي انت بديت صوماليا إني ما أنت سيد أي تاي أو كلاتو أي سياسات ده كل ما دونتو وحي بوقتي habki iyo qaabki iyo farsamadii dalka Soomaaliya loo hogaaminay 4 sano la soo dhaafay in badan dadka wax karto Soomaalida waa ka digeen inay sida ay caawato kale ay ku dhamaan doonto hore ayaa looga digay si kastaba ha ahaato sababtu waxay tahay hoggaan aragti leh ayaan Soomaaliya ka jirin marka hadda waxaa la sheegayaa galabta wararka ka imaanaya waxay sheegeen meesha sida aad sheegtay iyadoo loo kala tagi lahaa in hadee mataqaanaa dadkii talada nagala dhaxaysay ay soo farageliyeen markii ay ku fashilmeen ama uu ku fashilmay ninkii la rabay inuu dalka Soomaaliya hogaamiyo oo dalkii ninkii laga sugayay ama hogaamiyihii laga sugayay inuu dalka Soomaaliya matalo min laga soo bilaabo mataqaanaa low yacade ilaa mataqaanaa meesha ugu koonfureysa Soomaaliya badhaadhe ayaa wuxuu ku soo dhamaaday inuu difaacayo hal degmo ama laba degmo oo laga soo doorto mataqaanaa xildhibaanka asiga ku matala golaha shacbiga marka nasiib darrada meesha ka jirta waxay tahay waa mid la filan karay waana hoggaanta laakiin madaxweynaha waddanka oo dhan uu madaxweyne u yahay inkastoo madaxda gobolladana ay saameyn iyo ku leeyihiin talo haddaysan iyaga dhankooda wax ka fududayn muxuu qaban karaa isaga ما مدحوينها وارنتها وحال بهنا إنه هذا مدحوينها سوماليا لكن أصلاً أيا إسكسو دجية أو مدحوين الدقمة أما هالقبل إسكو بدلي جامية بلد إسكو بدلي أنت تفرض حقيقة لا ما هي مدحوينها وضن كمان وشيء إنه معموله إسكو سنة دتك وقبته وحعدينا يا فدق الله فديك لو سمرات أيا عدينا مدحوينه إنه ندلك سوماليا معمول وياي مدحوين الديجان حافظ جار الدنتو ذاك شقينا إنه ياي فدق عدينا أفرت سنة لو صار فنتقل في سودا سوءها وحنا معنا مثلا ما ينش حد ميد لما جرع وأنا جن من ميد إن جرع مدن كبله لقوا عن كل شيء يا وفشل هجان سياسات دلك متعاو باللودن ما هو مت أفرت سنة لو صار في الصومالية كجري مركز الصومالي حقوق عن تاعي إلا بتباديو إن شاء الله وأنا اللي بدبادين هي dadka Soomaaliyeed marxadan adag oo ka gudbo doonaan hogaan aragtidana waa doonaan hadii aad marka madaxweynaha hadeertan wuxuu ku baaqay in la qabto shir baarlamaanka isu yimaadaan halkaasna ay taladii wax ka soo baxaan marka taa ma la dhihi karaa dhankii kale wuxuu aaday golihii sharci dejinta oo maanta wadanka ugu sareeyay wax loo qabto madaxweynaha awal bagolahi shacbiga ayagoo waqtigoodu dhamaaday asaga ayaa gacantiisa ku qoray warqad uu leeyahay dhammaan shaqooyinkii qabyada ahaa ee golaha shacbiga baarlamaanka 10aad u qaban lahaa waxaan u rafacay baarlamaanka 11aad ee la dooran doono golaha shacbiga waqtigoodina waa dhamaaday 27kii bishii December ku dhamaaday asaga nafsadiisa mudane madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaana gacantiisa ku qoray waan gartay shaqadii baarlamaanka 10aad inuu u gudbiyay kii 11aad marka meeshaas meel u laabto ma taalo hadday dhacdo in la isku dayo oo wax aan qaanuunku qabino aan xeerku qabino musuq maasuq iyo wax isdimar ah hadii ay ku dhaqaaqaan asiga iyo xulafo u leeyahay dadka Soomaaliyeed ma aqbali doonaan gaar ahaan dadka Muqdisho ma aqbali doonaan wax khilaafta dastuurka waan gartay ugu dambeyntii madaxweynaha halku taagan waan aragnay maamul goboleedna halkay taagan waa la arkay marka masaasa la isu hor fadhinaya soo looma baahan in xal uu yimaado maadaama wadankii uu ku jiro xaaladii u dambeeyay in doorasho la qabto وسيدا أن هرك وجوش شيء مدحون فرماجو ما أنت ما فشل من أفرتي سنة إلا صار أيو فاشل أها وقت جسنا واقع مالي سجال كبيسنا ثلاثة دلك وحلوور الدين سكوا بالجارة قدوميها قالها شعبي إنك استوى قالها شعبي لفت قود وقت قود أول ماضي لكن هي أدى شرع الدجنت هي أدى فرينت أو لبضة أو وقت كذا ماضي مدنانت وحال سيكرة أو عقل قصينا يا هي أدى شرع الدجنت مركز مرسلة لوديبا أستجع لبض ودك كمان ما دكتور رشال مجعبة
golihii shacbigana guddiga waxaa lagu dooranayaa laba baa lagu dooranayaa kadibna waxaa la dooranayaa madaxweynihii soomaaliya dhibka soomaaliyana waxaa lagu xallin karaa 90 maalmood ee soo socda insha allahu soomaaliya waa mahadsantahay Dr. Imaan cusub iyo gole shacbi oo cusub bayna soomaaliya yeelanaysaa